Assalaamu calaykum. Ramadaan Kariim meel walbaad joogtaan. Maanta waxaa si toos ah inoogu bilaaban doona taxanaheennii Ramadaanka. Barnaamijkan magaciisa waxaa la dhahaa Makhluuqii ku jira dukaanka. Daawasho wanaagsan. Magacaygu waa Dr. Frederick Treves. Waxaan ahay dhakhtar ka shaqeeya London Hospital. Sanadkii markuu ahaa 1884, waxaan arkay sawir ku dhegganaa dukaan, kaasoo u dhowaa isbitaalka. Waxaan istaagay dukaanka hortiisa anigoo fiirinaya sawirka. Marka ugu horreysay waxaan dareemay xiiso, kadib waxaan dareemay xanaaq, haddana waxaan dareemay cabsi. Wuxuu ahaa mid argagax leh iyo sawir fool xun. Wuxuu ahaa nin ku sawiran daaqadda dukaanka, laakiin ma u ekayn aniga iyo adiga midood. Waxaan akhriyay qoraalkii ku qornaa hoos, waxayna ahayd sida tan: soo gal halkan si aad u aragto ninka maroodiga. Waa 2 shilin. Waxaan furay iridii waana galay. Waxaa jiray nin ku jiray dukaanka. Wuxuu ahaa nin wasakhaysan oo xiran jaakad qadiim ah, wuxuuna afka ku hayay sigaar. Maxaad doonaysaa? ayuu dhahay. Waxaan jeclaan lahaa in aan arko ninka maroodiga, fadlan, ayaan dhahay. Ninkii wuxuu ii fiiriyay si xanaaq leh. Hagaag, ma booqan kartid, ayuu dhahay. Dukaanka hadda wuu xiran yahay, biri u soo laabo. Waan ka xumahay, ayaan dhahay, laakiin waxaan jeclaan lahaa in aan arko hadda. Ma hayo waqti beritoole, waxaan leeyahay shaqo badan oo aan qabto, laakiin waxaan ku siin karaa in ka badan 2 shilin. Ninkii wuxuu ii fiiriyay si taxaddar leh. Wuxuu afka ka soo baxshay sigaarkii, wuxuuna ku dhoola caddeeyay ilkihiisa jaallada ah. Hagaag mudane, isii 12 shilin. Waxaan siiyay lacagtii, wuxuuna furay qayb gadaale ee dukaanka. Waxaynu galnay qol yar. Qolku wuxuu ahaa mid mugdi ah oo qabow, sidoo kale waxa uu u urayay si xad dhaaf ah. Makhluuqii wuxuu fadhiyay kursi miis gadaashiisa ah. Makhluuq, ayaan dhahay, sababtoo ah ma ahayn nin iyo naag sida aniga iyo adiga. Makhluuqii ma dhaqaaqin, manana soo fiirinin annaga. Wuxuu si deggan u fadhiyay kursiga qolka qabow oo mugdiga ah oona wasakhaysan. Makhluuqii madaxa wuxuu ku watay dhar, sababtu waa qabowga qolka. Xalqadeeni maanta intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa. Inta aynu xalqad midaan la mid ah ku kulmi doonno, waxaan idinkaga tegaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.